gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa si rasmi ah maanta u seexay habraaca iibka iyo qandaraasyada dowladda hoose xamar kadib shir balaaran oo ka dhacay aqalka dowladda hoose ee Muqdisho. goobta lagu saxiixay habraacani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimayaasha dowladda hoose xamar, waxaana ahmiyadda habraacani ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur. samayn doona guddiga iibka oo gobolka oo asoo runtii noqon doona dadka mas'uuliyadda qaadi doona procurement-gan adeegsigeeda iyo hirgelinteeda. marka gudoomiye waa runtii wax qabadkii aan halka sano aan soo qabanay qaybtii ugu muhiimsan ka tahay. waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo in aan ku guuleysan doono boosida kale shuruucda kale oo dhiman ayagoo hadda gacanta ku helin diiradda gudoomiye soo dhow. duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriisu ayaa sheegay in habraacani uu muhiimad gaar ah siinayo dhiirigelinta qandaraasleyda Soomaaliyeed iyo horumarinta mashaariicda laga hirgelinayo caasimadda. tan habraacan iibka iyo qandaraasyada wuxuu waafaqsan yahay kii dowladda federaalka annagana ka dowlad hoose ahaan runtii muddadaas waxaan ku guuleysanay inaan kasbanno kalsoonida hay-adaha caalamiga oo la socotaan bangiga adduunka iyo hay-ado badan oo kuwa qaramada midoobay ah inay aamineen maamulka gobolka Banaadir inuu hadda u samaysan yahay nidaam salkiisu fiican yahay laguna aamini karo inay howlihii si daahfurnaan ah bulshada ugu qabtaan uguna adeegaan. taasna waxaa ammaanteeda iska leh runtii dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo gobolka Banaadirba oo runtii la-aantood aysan suurto gasheen in aan maanta soo gaarno heerkan oo ah in dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir ay leeyihiin buug saxiixan oo habraaci loo mari lahaa iib iyo qandaraas. iibkii qandaraaska dadku waxaa laga yaabaa inay keliya u arkaan wixii mashaariic keliya ma aha, waa wax kasta oo adeeg ah oo loo qabanayo bulshada inay nidaamkaas soo marto. sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay buug laga tixraacayo habraaca iibka iyo qandaraasyada ee dowladda hoose xamar. waxaa kaloo iyadana mahadle guddigii loo xilsaaray in muddo ka soo shaqeynayay oo waliba dad khubaro ah odayaal aan ku jireen ayagana u istaagay in bulshada maanta aan usoo bandhigno buuggan aad arkaysaan oo hagaya guddigaas iibkii qandaraasyada dadka Soomaaliyeed shacabka ama qandaraaska soo dalbaday ama ayagana ku kalsoonaan karaan ayaga naftirkooda daahfurnaan u tahay fahmi karaan waxyaalaha laga rabo inay soo buuxiyaan shuruudaha si hadhow ay u noqoto mashruuc walbaba sidii loogu talagalay inuu u hirgalo. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.